وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaa la doortay inaan ka warramo jiilu saxaaba, facii saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa fac runtii culammadu waxay dhahdeen jiil fariid, waa fax ka gedisan nolosha dadkii soo maroo dhan. walidalik baa culamada taariikhda rag ka mida waxay tilmaamaan jiilu saxaaba hortoodna wax la mida lama arag bay yidhaahdaan, gadaashoodna wax la mida lama arag. waxaana la tilmaamaya ilaa qiyaamu saaca uu dhacona cid la noocii inaanay soo maraynin. jiilkani muxuu dadka kale kaga gedisan yahay? koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin leh. waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman, hadday tahay caqiidadooda saafiya, hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda oo dhammaystiran, hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen, hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa, hadday tahay go'aan qaadashadooda iyo wanaagooda, hadday tahay jihaadkay islaamka u galeen. waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin. waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd, fardi ka mide hadduu taariikhda kala soo maro, qof ka midi taariikhda wakhtigaa waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa. maalan cumar bin alkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumara, waxaa la hubaa in taariikhda ay tilmaamaan lahayd wakhtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn. waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camr soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa. idan waa koox ka gedisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan, marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qimadooda inta ay gaadhsiisan tahay. jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa? waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan. muxuu ku suntan yahay? kow, cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahay. cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahay. bale waxay culammadu leeyihiin cinda allahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahay. waa kooxda qura ee la tilmaami kara ilaahay agtiisa waxay ka yihiin. dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa uzakiiha cala allahi axada. hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican, dadkaasi waa reer fiican, jiilkaasi waa jiil fiican, ilaahayna cidna u ammaani maynaad odhanaysaa. ama jiilu saxaaba kuwa ma aha, iyaga lama yidhaahdo walaa uzakiiha cala allahi axadan. jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey. waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabu samaawaati walardi uu ka markhaati kacay. walidalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadano, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fi quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen. dadkan laleeyahay raallaa laga noqday ummadad intee le 1400 oo nin bay ahaayeen. 1400 oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaanahu wa tacaala, markaasuu leeyahay kuwa ilaahay baa raalli ka noqday. waa shahaada min allahi subxaanahu wa tacaala. innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa, qofka ama cibaadadaynu ka aragno, deeqda aynu ka aragno, tala fiicnida aynu ka aragno, ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon. qoladan see ilaahay muxuu leeyahay facalima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyahay. iyaga maaha daahirkoodaba wax la qiimaynaya. ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda. sidaa awgeed baa faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba, ilaahay wuxuu leeyahay laqad taaba allahu cala alnabiy والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إلهي واك توبة أقبل إبال لي نبيك يا مهاجرينتي
iyo ansaartii raacay nebiga wakhtigii adkaaya cuslaa nebiga raacay wakhti ay u dhowaatay dadka barhkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay. dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwama waa ghaswatu tabuuk raggii galay. tabuuk yaa galay 30,000 maaha qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 maaha, waa 30,000. 30,000 ciidan oo meel galay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda waa aqbalay. idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gadisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin. waa dad miisaankooda ay alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa, maaha cinda albashar, cinda allahi subxaanahu wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihiin baa la garan karaa. ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen, ilaahay baa si xaqiiqadooda og. adigu waad qiimayn kartaa, qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa, laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisi qiimeeyeen. cid aad odhan karto jannay galaysaa ma jirto, dee kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa galaysaan mooyaane. sidaa ogeed ayaa axad culamaa'i taariikh baa wuxuu idhaahdaa jiilu saxaaba mustawahan sare waxay ku gaadheen baan u malaynayaa buu yidhi 3 sababood. axad alculamaa'i alukhraana isna wuxuu leeyahay anna 3 kalaan u malaynaya, bal aan wax ka tilmaamno. waxa uu tilmaamayaa qoraaga kani sababta koowaad ee jiilkan ay dadka uga gadisan yihiin war horta dee waa ilaahay baa doortay buu leeyahay oo u doortay inay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u ahaadaan gargaarayaal. ilaahay baa doortay oo u doortay buu leeyahay bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka ummadda diinta gaadhsiinaya inay noqdaan. oo ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula, dadna cadaabi mayno inaanu rasuul u soo dirna mooyaane. nebi maxamedna waxaynu ognahay calayhi salaatu wasalaam 63 jir markuu marayay inuu dhintay. haddaa dadka dambe yaa u rasuulah, ilaahayna wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula. ammaanadaasi waxaa qaaday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. alasl alculamaa warithatu alambiyaa, laakiin kuwa kani waa kuwii intay nebiga ka soo rareen calayhi salaatu wasalaam bini aadamka soo gaadhsiiyey. waxaad garan kartaa cidda ilaahay ammaanadaa ku aaminay ee ciddii koowaad ee nebi maxamed ka qaaday inaanay dad beenaalayaala iyo dad wax khiyaameeya iyo nooca kan inaanay marnaba noqonaynin. sabab labaad bay tilmaamaan oo jiilkani ama facakani uu dadka kale oo dhan kaga gadisan yahay. waxay yidhahdaan wuxuu kaga gadisan yahay taraakum alkhibraat bay yidhahdaan. waa fac ka khibrad gadisan dunida inteeda kale. maxaynu uga jeednaa khibradda tan? kow waxaynu leenahay waxay arkeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. innagu agteenna waxa ku weyn qofka muslimka intuu seexda yidhaahdaa nebigii baan riyo ku arkay. agteenna wuu ku weyn yahay. nebigaana weyneeyey calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay shaydaanku iskuma kay matalo. qofkii riyo igu arkaa wuxuu la mid yahay inuu ay arkoo kale. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. كل هذه الأحاديث وبخاري ورينيو waxau nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ninka riyada igu arka ee ku arka sifadiisii uu lahaa. waa sababta aynu u baranno shamaa'ilu muxamed calayhi salaatu wasalaam. nebiga dherarkiisii iyo midabkiisii iyo ballaciisii iyo timihiisii iyo waxaasaa kutub alxadiis lagu dhigtaa. maxaad u dhiganaysaa si aanu kaa qaldamin hadhow riyada markaad aragto haddaad calaa suuratihi ku aragto fa huwa shaytaanku iskuma tamatulo. ama haddaad dee nin madoowo meel maraya aragto inaan rasuulka waa la garanayaa ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin madow ma ahayne. idan sifaadkiisii haddaad ku aragtay waxaad la mid tahay inaad aragto. innaga markaa agteenna waxa weyn ninka intuu seexdo ilaahay waafajiyo inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam riyo ku arko. ka warranka maalin walba 10 jeer arkaya uu ka soo horbaxayay isagoo rumaysan oo muslima oo ilaahay yaqaana maalin walba ka soo horbaxaya xaqiiqatan u arkayay.
marka leena xaqiiqatan u arkay wax badan baa ku hoos ladhan marka laan wax ka tilmaamay qodobka labaad waxaynu tilmaamaynaa ay saxaabadu dadka kaga gadisay waxay ahaayeen dad quraanka la nool erayga u fiirso inagu waxaynu maqalnaa asbaab nuzuul aayada tani waxaa dhaco waxaasay ku soo degtay waxaa dhaco saasay ku soo degtay laakiin iyagu way la noolaayeen waxaad sawirataa gabadhii muslimadda ahayd ee odaygeedii muranku dhex maray ee uu dhihaaray ee ilaahay u ashtakootay ee ilaahay ashtakadeedii ka soo jawaabay gabadhaasi quraanka markay akhriyayso siday u akhriyayso iyadu ku soo degay iyada ashtakada samaysay dabeetana ilaahay iyadu qadiyadeedii ka warramay qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir gabadhaas maxay dareemaysaa marka qad sami'a iyadu akhriyayso ay salaad ku tukanayso وكلا قديسي هذا إن لقاك شيء يا قبل بينك هديس قبتين دبتنا قرآن بكسود دقي يينا يتاجن تهيتي قرآن كوكسود دقو يدو أخريس أو يدو إلهي واشتكوتي أو دبتنا اشتكد يدي إلهي أقبلي هلا إذا عمر بن الخطاب يعيدا صعنا يمال صامري دبتنا إسلام بكصابحي إسلامتو وسلتاج markaasay wax u sheegtay warkiisii buu dhageystay warkeedii markaasay ku yiraahdeen habasta أمير المؤمنين بيله حبست الناس على هذه العجوزة دتكي ما هبرت ما دو جوجيسي يعني دتكي وحي النعمة يستين دتكي لما يسعون يا إسلام لهذا الكيدن عمر سوتاجي عمر باو حكويري ويلك ما قلت انتني تيتهي مرقاسان ليدي مايا مرقاسوا لي واتي لهي فوق 7 سماوات اشتكد ذاك أقبلي وخولة بنت ثعلب بولي وقبل يكسو دكتي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يكسو دكتي إلهي ما كل دارتي بولي هدي إلا إيعا ويترى هذا تاجنو صلاة وحانا هين وقام دقاقين ورو تاجنان لها بولي يعني مركا إنه قرآن كان مفهوم كامركا إنه ودق نقف والبا إلا القرآن كان مال عدلاكم مسو دقين الرقن يدو مركا ماشي تشوكو كسو دقين إياك أمل لقو السحية أمل لقو التوجيهين أموح لقو التلمامي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لا وكوان تاجن إذا القرآن كهذا دقو أخريسه يرجو كسو دقية تاجنا إياك إلهي كورمي إسكو ندن نقول ميسان إسكو سينا ودريمي ميسان أرنك الصدحات أو شخص التلمامي يوحويان النبي عليه الصلاة والسلام غيب بدن يوح معجزات يكموك ورما إنك بعد السنة دير علماء الحديث كساروريان مركو صامرو كتب صامرو عين كاسبين السوق قاري وركاسين إنه مغلى لكن يجو ويتاجنايين وهي علماء ذو يلاهدا أما علماء طبعا كاك حيو نبي الله موسى عليه السلام وإلهي وكعي سبحانه وتعالى يا إلهي الله هضليه أيات تلكي وحي عابدين دبي دبتنا وحل سوسي كتاب الواح قرن وحل الله شيء إلهي وقور رمي نبي موسى دتكي إني عابدين محي دبي إني عابدين وعرضه وصانغضه مركو لكن أركي واقعي نمنكي مؤمنين تيوك تجيو دب عابده يا مركو أركي لو حنتي إلهي وحقو سوقره وستور دولك كنفطي مركاسي كلا شفتي النبي عليه الصلاة والسلام تعليقية وحيدي ليس الخبر كالمعاينة أبو النبي يقول وركو أركتد الله مد ما هبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام نبي موسى وربا الله شجاع دتكي وي عابدين دبي لو حنتي سوسكسي تبر كامل شبينين لكن مركو يسوع تاجي عندها سهاري يجو هرتي سدبي كو عابده يا عرض دراد مركاس الله حكى مركاس النبي يقول ليس الخبر كالمعاينة محانو قدن لنا مركا معجزات كالله ينوغا ورمي وحدا ويتاقناي إنه وحلا ينوشاق إنه قريش يسكهري بادني بقوا كاسو ضي حالك لدلعي كورن ضي حول لبا نقضيني كي تاقنا ضي حول لبا نمبلا يساقوا لبدي سيندوتكو أركي كورن نكي تاقنا يساقوا بيرش يبقر كي تشوغي والله هدلي عامل كيسي يمن تشوغا
oo ku yidhi ninbaa gobolladaada ka soo baxay aniga waraaqii soo diray waxaasi ma dhici kartee ii keen ee labada nin soo diray ee labadii nin nebi maxamed u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo raba inay u sheegaan boqorkii kisra ku doonaya eena raac dabeetana wuxuu yidhi bal noqdo oo ii kaalaya aroorta way ku soo noqdeen markay subaxii u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi kii idin soo diray ku noqda oo waxaa u sheegtaan ina rabbii qad qatala rabbahu leyla rabbigay inuu rabbigiisii xalay dilay kisrahay ku lahaa ka yaman la soo hadlay yidhi waxaad kii yamaneed u sheegtaa xalaydan aan joogno aniga rabbigay inuu isaga rabbigiisii dilay boqorkii kisra nafsi leyla baa la dilay oo kisra dhintay ka warran ninka saxaabigee joogay ama saxaabada arkaysay nebi maxamed oo khudbadaynayo geed dhinaciisa taagan iyo ooyayo geedku ka hor khudbadayn jiray waagii hore intaan loo samaynin mimbarka oo ka dhinac ooyayo ay maqlayaan dadku xaniin iljidic dhammaantood ay maqlayaan ka warran nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhex taagnaayeen oo intay biyo waayaan gacantiisa madibad yar u geliya weel yar biyaa gacanta u geliya oo dabeetana ay arkayaan farihiisoo biyo ka dareerayaan oo ku weysaysanayaan 80 nin baa ka weysaysanaya mararka qaarkood 300 oo nin baa ka cabay ama ka weysays ka warran yani nimanka soo taagna waxaas nimanka soo taagna inay jibriil arkaan intuu nabiga u yimi oo su'aalo weydiiyay oo caynkan oo ay yidhaahdeen nin aanan hore u arki jirin oo caynkaasaan markuu baxay uu nabigu ku yidhi ma garanaysaan kan idinka tegey ay yidhaahdeen maya uu yidhi jibriil oo diinta idin baraya buu ahaa idan saxaabadaas dadka waxay kaga gadisnaayeen iyagu diintan bay la noolaayeen qaarkood iyagoo dhulka kor maraya la yidhi jannadaad gelaysaa dunidan intay cidhiidhi ku noqonaysaa ninka og inuu janno kusii socda haddaad hubto caawa marka naftu kaa baxdo cirkan iyo dhulkan meel ka weyn inaad helayso tamriiskeedu minkuuba dhandhami lahaa ma qiimo kula leeyahy ragga iyagoo halkan taagtaagan la yidhi jannaa leediin jannaa gelaysaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jooga idan ayuha alaxiba wuxuu sheekhaasi tilmaamaya uu leeyahay dadka kani waxay ahayn fac ilaahay doortay waxay ahaayeen fac qur-aanka la noolaaday iyo soo degistiisii waxay ahaayeen buu leeyahay fac dee aliya rasuulkiisu ka warrameen ina khayrakum qarnii buu nebi maxamed leeyahay dadba waxa u khayr badan qarnigayga kan uma aladiina yaluunahum waxau nebigu tilmaamaya laa tasubuu asxaabi war saxaabadayda waxa ka sheegina war saxaabadayda ha maagina ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam buurta uxudoo dahaba in leeg haddaa bixisaan mudkood waa 2 sacab mud uu midkood bixiyey ama nisfu mud uu bixiyey gaadhi maysaan waayo nisfu mudkaasi diintan dhan baa ku kacday adigu haddaad maanta buur dahaba bixiso maxaad bedelaysaa diintan dhan ee ilaa qiyaamu saaca taagnaan doontaa mud iyo nusmud ay nimankani bixiyeen bay ku taagantay marka laga yimaado dhiigoodii iyo naftoodii hantidooday ku taagantay hantidooduna waa maxay waxay ahaayeen mud iyo nusmud hadday qarniga noolaan lahaayeen waxaynu odhan lahayn waa dad caydho meel degane waxaa loo ururiyaynu inagoo odhan lahayn markaad noloshooda la sifeeyo siday ahayd saa daraaddeed jiilkaasi jiil mudan buu ahaa ilaahayna markuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyagaa marka hore lala hadlaya iyagaa kow ka ah waxaa kuugu filan ilaahay qur-aanka ku leeyahy والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كوي صهر مري الرئي مهاجرين يا أنصار هيا وحي الراعي إلهي برا لك النقضي بالليل يقول الله يرى لك يهين جنة لو دياريه با إلهي هو مرخاتك عيا أي كواريا
كورا مركا إلهي قرآن كورا ما يقال لي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة، وحلنا جيل كاس وجيل إلهي دورتي ضد كان كم مضن مدين هانو قولي كم مدين ما التاريخ ده بني آدم كاقري سينا يهين ضد كجدسن نوعيات كي الدنيا ده صامرة يوردن وحبان كتلمامي هذا بقى إسلام نمضو ما يقول قولي كحدناي معناه ما هو يعني كان النبي محمد أرجع إسلام متاجي كرايو أما الدين تمرق ما يسوى مايا هل كي جارين ومن لجاري كرين لكن ومثل وتلمام لأديك سنة يوقف ورباينو جارو والله جاي بفردي يلا بيصدح جارين أدركته لكن بلشة دي ترى لك وطيال لك يدو متشريس لكن إلهي النعمة دي سقف كيدا دالا وقاري كرا وحيا بقافكم هذا الدين تتاني لو قمت لك قالين نلاش النبي قال قرين يشوكته وقرن كرنا ان قفكم هذو الشيخ هاك وحكور لي كو تبارك تري ونقضى نندقسيه ووحكستكو سيه ونقضى ننجيسيه ودفت مركو قبصتكو الدفاع او نقضى نن عقل بدن وهو حد باهتو كالا تلين كرا أو نقضى الدين نكو قدري يعني وح الله باين أدو شعلان يسوسي كما الدنبيسة وحان الله باين كور رادين دونه غير عادية حدو ما لين سنيك النبي محمد شيخ وها مركا عليه الصلاة والسلام صحابته ضد بكيو جيس السنة ودق بدنا وفعنا وطلرونا وعين كان إلهي بدتك كده دورتي أيادي معلن كودية أيها معلن كودية تببره هودية ساسي أوجدت كيني كجد السنان دونان ومسألة معقولة إلا الشيخ خد جمل هالي ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن تام معناها ضمها إن إسلام لماذا لسوء علين كرين إن القرآن كي السنة الله طبق كرين إن حتى إلهي ونود شيء اللي قاعد كرين مرة معناها ضمها وإلا ده دين تبين نقطتين دين تيودم بيسا إلى آخر الزمان كالله تعالى قال هذا بوحين السويدين إن أمريكا نكون مادنا قمة الصرع أن مادنا هالكو هذا وهو سيء وحكينا إني هالكا هو سوقد عوايان حيتي وهاي علماء قارليين لبس سببات ما صدح سببات باكيني ماشين يقارا كو مدي وحويان بيلين مصدر التلقي حقي وحكا قادنيين dadkaasi waxay wax ka qaateen il saafiya waan aje iyo dhooqa iyo dhibtoona lahayn il biyood oo saafiya macnaheedu ma waxa weeyaan wax kale aanay haysanin maya dunida falsafada waa yaaleen falsafadii xadaaradii roomaniska taalay xadaaradii griiga joogtay xadaaradii beershiyanka xadaaradii hindida xadaaradii jayniska dunidu ma ahayn saadadka badmoodayaan meel madow oo imkuun iftay ma ahayn dunidu waligeed ba afkaartan iyo filosofiyada maanta ugu waaweyn ee wali layna daba wadaa aristotle iyo Platon iyo kuwa la sheegay de waraga horown ma kuwa imka jooga dunida uquul iyo afkaar iyo aaraa'iba way taal laakiin nabi maxamed markuu rabbeynay wuxuu ku rabbeeyay inay ilaahay kaliya kala kulmaan laba wixii ku saabsan caqiido iyo values qiyam iyo tashriic inay rabbi kala kulmaan wixii maado iyo idaaraad iyo aqoon adduunyo ku saabsanna bini aadamku wadaagay inay aadana kala ka qaataan wixii la dheer yahay taas waxay keentay markay joogto mas'alada value-ga iyo aqaa'ida iyo sharaa'icda ku saabsan wuxuu nabigu arkay maalin عمر بن الخطاب أن يهودي يدوا بالوراق صغر كتاب كنا وحيابه ونكسره كقران تبى ترى وراق بومدو قرأ
روايات كقاركودنا وحلين وراق بو هلي عمر أو وراق آخر السنة يبو النبي وارك أنا سؤال وام حي واحد آخريسه مركز سوحي waa qoladan yuhuudeed kutubkoodii weeyaan wax ka mid ah am mutahawwikuuna fiiha buu nabigu ku yidhi oo adna miyaad wareersantay buu ku yidhi iyagu wanaga waa wareersan yihiin adna ma mutahayyir adna miyaad wareersantay buu ku yidhi war waxaan idin la imi buu nabigu leeyahay baydaa naqiya diin baan idin la imi cad oo saafiya ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu yidhi hadduu nebi muuse noolaan lahaa kitaabkii tawraad oo la qalqalday oo la inxiraafiye iska dhaaf nebi muuse hadduu noolaan lahaayo maanta joogi lahaa uma bannaanaateen inuu aniga i raaco mooyaane wax kale buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa nebi baa soo degi doona isaga dabadi nabiyullaahi ciise oo cirka la qabadsiiyaa iman doona laakiin muxuu raaci doonaa sharciga nebi maxamed uu raacaya uma bannaana buu nebigu leeyahay hadduu xataa joogo muuse ما حل له إلا أن يتبعني أنا جاي إنه يراعمه يعني واحد كلا وما بنانين بالنبي عليه الصلاة والسلام ساش واحد تهاي مركها إنه حقين وحكا قادنا مناهجتين علمية دي أقوام دي حقين وكأن وحين لنا الثقافات كأن وحين القرآن كقادنا بير وحوقو بدن وحين كقادنا محي عد كلا إنه كقادنا خير بري يرير قلبات iyo thaqaafaadka dunida yaala xadaaraadka kale iyo aqoontoodii waxaasaynu isku raray haddaynu rabno markaa meeshoodii oo kale inaynu ku dhowaano waxaynu u baahanay manaahijteena inaynu dib u safayno min ayna natalaqal xaggaynu kala kulmaynaa diinka xaggaynu caqiidada ka qaadanaynaa xaggaynu valuega ka qaadanaynaa waxaynu kaloo u baahanay xataa waxaynu akhrinayno xataa turaadka islaamiga ayaa tasfiya u baahan إسرائيليات بدن يوح ضعيفة يو خرافات بدن بالقري حتى كاس بينو بهنا إنه هو بينه ما يهي قرآن كي ألا سودة شيء تفسير كيسان تفسير صح مية وحنا تيجي حديث كي النبي محمد الصحيح مية مسوح ودا تسكش جايو إذن أول خطوة ينوبة هن وحويان ماشي إنه حكا قادنا إنه يصافي النقطة ثانيا مرة بعد وحين لنا هاي وإنه ماشي وديو قاري ويني منهج تلقيك كلا قدسن إيجو وحي قادنا ين وحي قادنا ين إنه يهاي محي عمل كودي يومي ياها تدمين سوحها تنتبه الكيم مع الميدا يكون رقميه سيدا أوجد سكوما بي بدين شرين وكيل جورين أيوه إنه لهاي متخايل طبعا آيات بانو قادنا طبعا كآيات بانو حفظنا ومعنى هذا برنا وكل قنا مركزان النبي وكسان قلنا عليه الصلاة والسلام مركز أيه قاب كي وحبرته وحها قاب عملية وحن وبرنايا إنه نلاش كم من نقطة practical نقطة إنه قلنا بدنا وحن وبرنا قاب للاستمتاع يلي الثقافة معلومات كأجينا بيرسوب بديسيت إن لا يدعوا دكتور هبل يو وماجستير هبل بوقاته يو يعني معلوم قرش هذا يو أحمد حاجة كوتشراون يبطان ساو قاعد وات صافر يسندرس كي ودق يسن واتسكتجي وات صافر يسودق يسن هان تادا دانسن لكن دقان كاغو الله هو سهله وحنا قرطي ميو يهي مساتي تلك يرهركي نتكون نغميسا تي دولدين يا وحين تكون نغميسا تي بلشدين يا وحي وينين يا ما تكون نغميسا بس وحنا براتات تكون نغميسا that's the question إنك ولي تاجن هديبا معلومات قاعدة معلومات صحتها هي practical مش بدشة إيجا معلومات دون الصافي بيه دون النبي محمد أفكي سيك قادين عليه الصلاة والسلام مرك الله بعدنا وحوها منهج كود ومنهج للتنفيذ تلقي كود وحوها إني فليان متكودنا مركا أوامر تيسكو مبدينين نواي وحو أركيي وحو فلنيينيتي مسألة الصدحات وحي كو تلمامان وحي دهدان إياغي إنك وحي نكوك لقدسني إياغو قفكودو مركو إسلامو وحي كهريونا شكو كقبي
saadaradeed wax kasta uu jaahiliyadiisii samayn jiray uu iska hubin jiray in islaamka loo ogoliyay inaan la ogolayn ilaahay rasuulkiisa saas saxmata islaamka loo ogoliyay inaguna wixiina waad baranaysaa waxaaga horena waad ku raraanaysaa iyagu waxay leeyihiin wuxuu ahaa koodu التخلي قبل التحلي بينهذا إنه يسكره وحو ستة يوردن أنت آنو مرض النظيف تاقشان هذا در عصب سوق هذا طب حاضو باهنطي هذا ما أنت وردن سوى شقيني سي والحمالة هيدا ما ودد النسي سي مكان دبور يسيقى ميدان باتاي لابد روح عصب مركز سوى يبسطو ما ديقوا وحاقي ستات كتشوفي مسيهورتا انت حمامك قشاد انت تسناديفي سو هي دارك آقا في عن حران دونتا logic wuxuu keenayaa intaad sanadiifiso inaad maxay dharkaaga kala xidhato saas ay ahaayeen dad minis markay islaamaan wixii hore ay haystay way ka tagayeen waxay u baxayeen inay qaataan waxa cusub ee diintu ay sheegaysay taasa waxay ka dhigtay jiil ama fac ama koox taariikhda bini aadamka mudnaan gaara ku leh tusaalayaal baan idin siinaya haddaba mudnaantooda tilmaamayay dunida aynu maanta joogno waxa la yaqaanaa ama sidii ibn khaldun iyo ay qori jireen waxa la og yahay dadka xadaaraadka maadiga ee sareeya leh inta badan inay dadka kale jabiyaan mentally u jabiyaan saxaabadii nabi maxamed waxay iyagu isu arkayeen maadaama macalinkooduna nabi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam warkay xambaarsayn ay rumaysayeen inuu ilaahay toos uga yimi dadka inta hadhay inay iyagu macallin ugu yihiin baabkan waxay rumaysanaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa inay ka qaadeen warkan inuu ilaahay ka yimi saadaradeed dadka inta kale waxay u arkayeen marka ay joogto valueska iyo aqaa'ida iyo sharciga markay joogto inay iyagu yihiin dadkii dunida wax bari lahaa markay seebirta iyo maadada iyo waxa kala joogto inay dadka kala mid yihiin oo ay ka qaadanayaan markay muslimiintu dagaalada bilaabeen futuuxaadkoodii ay Persia istileen Persia waa dawlad qadiima waa dawlad muddo soo jirtay waa dawladii jabisay markaa dawladii Romanska ahayd